التلسكا جودة عيدن كبوليسكا سوماليلاند ayaa waxa ay maanta si rasmi ah ula wareegeen 5 baabuur oo casri ah kaasi oo ku caawiyay xafiiska FGO ee dawladda Ingiriiska kaasi oo ciidamada booliiska Soomaaliland ka caawiya arrimaha ciidamada munaasabadii ciidanka booliiska Soomaaliland ay kula wareegayeen gaadiidkaasi casriga ah ee lagu talagalay ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa waxa goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda umuraha gudaha Soomaaliland محمد كاهن أحمد تليها جودة عيدن كبوليس كسومالان زرية قاس عبد الله فضل إيمان مسؤولين تكسعودي عفيزكا FGO إيا وليبا زراكيل كلا أو كترسن عيدن كبوليسكا وقورنا وحال كاسيكا اللي مسؤولين كسعودي عفيزكا FGO الدولة إنجليزكا يجو كعاوية بابور تعيدن كبوليسكا حاسكون نمت إنان ماركت هاي أنا جو دولة إنجليزكا مثلنا إنان قاري كوريتشينو بابور كوريتشينو دولة دينا سوماليلاند oo horseed u yahay wasiirkeenan arrimaha gudaha iyo taliyaha booliiska saacad wasiir anoo ku hadlay afka companyga Axiom International oo hoos yimaada xafiiska FCO waxaan doonaynaa inaan 5 baabuur aan idinku soo wareejino 2 xaajiyadood iyo 3 hartab oo lagu talagalay public orderka baabuurtaas oo muddo fiican idin socon doonta oo idin shaqeyn doonta baabuurta haddaan xogtooda idin siino saacad wasiir waxa weeye 2017 ayay 5 yihiin waa baabuur wakaaladeed oo si wanaagsan loo soo qalabeeyay qalabkoodii iyo isbeerkoodii wada wata. Good morning, Minister, Police Commissioner. It's very pleased to be here today to hand over the 3 public order vehicles and 2 vehicles for the Somaliland Counter-Terrorism Unit. taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Sarreeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan oo isagu munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyay xafiiska FGO ee dawladda Ingiriiska kaasi oo uu sheegay taliyuhu inuu si weyn ula shaqeeyo ciidamada booliiska Soomaaliland. waxa farxad weyn oo ah in saaka iyadoo wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha nala joogo ciidanka booliiska lagu wareejiyo yani waxyaalaha ay ka caawiyaan ee ay ka taageeraan ciidanka booliiska Soomaaliland dawladda UK oo iyagoo horena gaadiid u keenay sida uu Philip sheegay hayr ku dharkan iyaga dhisay oo maalgeliyay waxa kale oo dhawaan qorshaysan hadii la yiraahdo sida uu sheegayo inay dhisaan academy saraakiisha booliisku leeyahay si dhaqso hadii la yiraahdo loo bilaabi doono bilahan soo socda baabuurtani waxay kaga duwayeen 3 baabuur hore dawladda Ingiriisku ay ku caawisay ciidanka ka hortagga rabshadaha waxay kaga duwan yihiin waxa weeye dib baa dhisay loogu sameeyay si aan dhagaxu waayo kuwii hore waa arag laga qaatay si aan dhagaxu aanu gaariga u gaadhoon wuxuu yeelin oo uu safe u ahaada gaarigu waxyaalo badan bay kaga duwan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa caawimada ay siiyaan waxaana saaxiibkay Philip ka codsanayaa haddii aan la yiraahdo inay deynta ka kordhin doonaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hadday dhismatay hadday gaadiitay hadday qalabka tahay kale ay ciidanka booliisku محمد كاهن أحمد وزير كوزارة أمورها جودها سوماليلاند وجبجبدي مناسبة سكة هاللي أيه وحى والشجع إن دولة إنجليزكو وحيا بدنا أي كسر ترت سوماليلاند وكان السجو مناسبة سكة هاللي أديات بنقوم هذا قيا أنا بقول هذا قيا مجا وزارة الرماها جودها يعيدن كبوليس كسوماليلاند دولة السوماليلاند ده دولة إنجليزكا معاونة قاعدين كا ay ugu daaqday ciidamada booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ayada oo horeba dawladda Ingiriiska xafiiska FCO ee halkan jooga ay dhamaantood wada shaqeynayaan aad u wanaagsan ay leeyihiin qayb weyn ay ka qaataan kaalmada iyo mucaawanada maxaan ku dhahday ciidanka booliiska aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa